dhacdadii 4 August kadib waxa uu hoos u dhac ku yimiday dakhliga maamulka magaalada Jigjiga waxaana yaraaday dakhligii ka soo xaroon jiray ganacsatada magaalada waxaana xusid mudan in ganacsatadu macaamiisha wax ka gadanaya ayna qiimaha canshuurta dheeriga ee faadka ka dhimin si lacagtaasi faadka loogu talagalay ay u gasho maqalka ganacsadaha haddaba wakaalada dakhliga oo ka duulaysa inay ganacsatadu faadka ay u jaraan macaamiishooda ayaa bilaabay wacyigelino iyo amarro ku aadan jarista faadka si taasi looga mid dhaliyo ayay wakaalada dakhligu bilowday talaabaqaad lagu xayirayo goobaha ganacsiga ee faadka bixinin si arrintaasi aan u xaqiijino ayaanu dhaxgalay dukaanada magaalada ee la ganaaxay iyo kuwa sharciga u hoggaansamay ee shaqaysanaya kii hore dakhligii baanan bixinin dhowr bilood anagoo dakhli ku shaqaynin marka xafiiskana daba galay dakhliga ku shaqeeya baa la yiri sharciga faadka kadib saasa dukaanka lagaga xiray ma sha Allah maantana waa la furay wixii dakhli lagu lahaana waan bixiyay wixii ganaaxi saarayna waan bixiyay waan ku faraxsanahay dadka waxaan ku waanin lahaa inay iyaguna ku shaqeeyaan sida sharciga dakhligu waa laf dhabarta shacabkeena waxa jirtay intii qabtiga hore ka dambeysay in aan canshuurta la bixinin oo gaabiyar halka uu soo galay saadaradeed xafiiska dakhligu waxay qaadeen talaabo ah in dadkii ay canshuurta bixiyaan marka meherada waa la xidhay badankooda sida anagoo kale wana laga xidhay laakiin waanu tagnay xafiiskan tagnay lacagtii waan soo bixinay sida ahayd baanu soo bixinay kadib meheradii waana loo faray alxamdulillah hadda waan shaqaynaynaa faadkiina waan hadda ku shaqaynaa marka waxaan leenahay dadku inay faadka ay bixiyaan canshuurta ay bixiyaan si ay inaga wax inoogu qabto waayo faadku waa qayb muhiim ah waa wax inaga wax laynoogu qabanayo anigoo imaaday hawshan ma garanaysaa dakhliga inaan bixiyo taasoo cadeynaysa in la bilaabay dakhliga ururintiisa iyo mataqaanaa cashuuraadkaba xaga waxaan u imaaday marka inaan bixiyo dakhliga haafaadkan ku shaqeynayna bilihii ugu dambeysay waan ku shaqeynayna bishii ugu dambeysay waan ku shaqeynayna waxaana bilownay bil ka hor baan u bilownay laakiin intuu dhacdo dhacday bilaadan faadka jirin bilaan faadka jirin way jirtay laakiin taas ay ka dambeysay daruuro bulshooyinka waxaan u dirayaa siba ganacsatada waxaan u dirayaa inay bixiyaan dakhliga taas ay ula niyoonayaan sida inay bixinayaan sadaqo oo kale ilaa waxan oo wax anagu dib noogu soo noqonaya loogu qabanaya sida leerka haday noqoto iyo sida wadooyinka loogu qabanayo maaraya ku-xigeenka dakhliga mudane maxamed rooble ayaanu ka wareysanay xaaladda dakhliga iyo sida uu hoos u dhaca ugu yimiday dakhliga magaalada ka soo xaroon jiray iyo canshuur bixinta ganacsatada maadaama markii hore dadka xoog iyo maaragtaan loo adeegsan jiray oo qasab laga dhigi jiray cabsi ay ku jirtay way cabsoon jireen laakiin dadku lama gaarsin heer inay sharciga u hoggaansanaan iyagu iskood isku diraan ay canshuurta maaragtaan wacyiga kor loo qaado markaasna maaragtaan iyagoo ogol ay bixiyaan waxay ahayd arrin qasab ahayd oo qasab laga dhigi jiray deegaanka rabshadihii ka dhacay waxay sababeen in maaragtaan dadkii sidaas aan jiray marka maamulkii meesha joogay deegaanka ka talinayay meesha ka baxay in ay canshuurtii looga baahnaa ay sidii looga baahnaa ay u bixin waayaan maadaama wacyigelin badan aan sameynay shirar badan aan u qabanay in badan aan la hadalnay hadda inaan ka howlgalno kuwaas tallaabada ku habboon aan ka qaadno marka ciddii maashiin haysatay ee waxba aanan faadkii aanan jaraynin totally waan kasoo xidhaynaa hadday tahay meheradahi hadda laba face waan u kala qaadnay facekan koowaad waxaan ka howlgalaynaa waa spare partiyada electronic dukaanada electroniga kuwa qalabka dhismaha iibiya kuwaas ayaan ka howlgalnay kuwaasa ilaa 41 meeradood baa la soo maray badankoogii ilaa 6 bilood 4 bilood lacagihii ay ururiyeen bay iska soo hadday soo shubeen markii laga xidhay kadib howlgalkuna uu sii soconaya horta fariintan bulshada u diray waxay tahay canshuurtu qofku hadduunan bixinayn muwaadinka iyo qofka aan muwaadin ahayn waxay kula socan yihiin waxay canshuur bixinta qofku haddii uu muwaadin yahay deegaankiinana ku nool yahay waxa looga baahan yahay inuu canshuurtii dawladda ku lahayd iska bixiyo dakhliga oo halbowlaha horumarka ayay muhiim tahay inuu qof waliba ku baraarugsanaado